السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضياف شرفتا يكرام ذا العالم الفردية يوجد ذبح. runtii anigu ku raacsan dadadii ahalka ka yiraahdeen marka hore magacaygu marka hore waa Dr. Saciid Xariir Diriye waxaan ahay xisbiga USSB ama xisbiga midnimada Soomaaliya State of Ethiopia anigoo waliba u taagan doorashada soo socota hadii la hay'ad 2020 waxaan ku raacsanahay odayaasha halka fadhiya baaqa ay soo saareen iyo gudida ama forumkan runaantii Ethiopia Isaaq Forum aad baan hadaladooda ugu raacsanahay waxa halka ka dhacay wax la qaadan karo maaha dadka lagu laayay harta sheekh qaar hore jaamacad dibad lagu laayay systemkii iyo nidaamkii loo oran jiray maxaan ku raad liiw booliska oo marka hore lagu dhisay qaab beeraysan isla markaana systemkii wali si dabada si haysta oo loo baahan yahay sida odayaashu sheegeen dawladda federaalku in arrinka wax ka qabato oo nidaamka iyo systemku uu noqdo mid dadka oo dhan matala dadka oo dhan dadka deegaanka degan haddaanu nahay xisbiga midnimada Soomaaliya State of Ethiopia baaqa halka ka soo baxay 100% waanu taageersanahay ay gudidu soo saartay waxaanu leenahay arrinta ay odayaashu halka kaga baaqeen dawladda federaalku ha maqasho hal la qaato arrinka wax laga qabto sida ay sheegeen waliba waxaanu ku raacsanahay xisbi ahaan in aanan aqbalahayn ciidamo liiw police iyo maxkamadaha oo NLF la isku daray oo deegaanada hawdana Seferiya iyo Somali State ba ka falgala waxa loo baahan yahay ciidan runtii dadka oo dhan matala dadka oo dhan uu maxaan ku yiraahdaa seefisu sameeya umada oo dhan waxa weeye ka kala yimaada mid darafka lagu yiraahdo feer ilaa caashacado inta u dhaxaysa ciidamada laga soo xulay oo rasmi ah oo waxa weeyaan dadku ay ku kalsoon yihiin ayaan u baahanahay inay ka hawlgalaan dalka ciidanka la yiraahdo liiw booliska waa in lagu sameeyaa dismantling